iyaarkeena jaad gabarta familkooda ma u sheegtaanne haa waa u sheegay ayaga hadda magaalada ma joogaan waddaday ku soo jiraan laakiin sidee ku dhacday hooyo ii sheeg inay ogaadaan rabaa run ahaanta mala socdo aniga daruug gabadha markii ugu dambeysay way caafimaad qabtay markii isbitaalka keen ayaa telefoon ay soo diray waxa la gabadha isbitaalka keen operation-kan ilaa inta uu soconaa ilaa iyo hadda ma uusan soo dhamaanin miya operation-ku waxa ka qaldan gabadha iga waran sidee tahay gabadhu way fiican tahay waa suuxsaneed hadday soo naxday haddaa u baahan tihiin hadda waa soo fiiri kartiin waad mahadsan tahay gabartii caafimaadaan ku rajeeha mahadsanid hooyo waxaan macaan ku rajaynaa caafimaad degdeg mahadsanid sidee tahay waan fiicanaha muraad diidam waxba ha walwalin aniga waxaan islaa xaaladeedu waa adag tahay laakiin hadda waaba fiicanta waa caafimaad qabtaa laakiin cunugaas aada u rabo durug aniga gabadheeda anagaa garabkaaga taan waxba ha walwalin muraad ayaa ku ag joogo familkood anaa kula joogaan ayeeye ayaa kula joogto marka murugta iska laakiin waan walwalsanaa hooyo bella waay wax walbana waa okay taasina ku fikirtaa run baan wax walba caafimaadkaaga ka muuqda waxaan aad uga xumahay muraad marka hore adigaan ku waay xaaladdan markay dhacdo kadibna cunugayga aan aad ku jeclaa ayaan waay waan ka xumahay muraad هاي قبل وحنا مالينا إنها قرشة في عنا تصاد ديارسين أنا أنت كبدن مسيل وين كرو حتى ينسود دالي إيه شيء أنا ممكن أرنت سفود إني كده عسو سلام فلانة وحنا نو كده عين هاي وحبة دعية إيه شيء محيين وحد دعية هالشيء كريم مدعي وح بدنا دعي وح في عني أما صوحهم لا بضبا يا أخي أنا هذا الكائن لا بني هذا الكائن شيء أنا عزوين عبد الكريم مرادنا إيمان لكن إيمان ملاكن إيمان دارمني مركز بقول بقى قالت مقتادي إيه بقى عليك من مسر كذا خو إيه بقى الهذا دي دم بالله وأورنا ملان ها أباي دارنا وحن إننا كفتن إهين كفتن ما والله بلا رمتواي وهي هي أخبارتان ما حكى دقي أخبارهم sababtoo ah annaga wax cadeena ma haysano teeda kale gabadhan warbixin been ay isbitaalka ka samaysatay cid raalli ka ahayd ma jirto arrintan inay dhacdo laakiin adiga ha walwalin aaba ani ma bahagaagsaniba cunugaana lama filaan ayuu ku imaaday anigana waxay leekayd inaan xaalad xun galayo aaba waa iska caadi walaal way dhacan aniga xitaa waxaan islaa mar dhow adeer ayaa noqonaysaa oo cunuga waalid u tahay ayaa arki doontaa xanuunka adiga aad dareemaysa saddex jubaarkiis ayaa anigana ahaya haddii aan murugtan iska dhaafno ka warama laakiin taas maxay soo kordhin kartaane arrimaha dhan been ayba ahaayeen gabadhaas wax qalad eh maadan ku samaynin sababta adi waxaa barataba inaad guursatid weliba adigoo jecel ah u qabin laakiin hadda runtaa waxayba tahayba gabartaa inay kugu dhedheelooso neef ayaan u baahanahay nafaan leeyahay abo anna hore ii sii jiidna waa ku tuuga aan ku sii raaco iga jooga